madaxda dowlad goboleedyada ayaa maanta magaalada Muqdisho kula kulmay wakiilada beesha caalamka iyadoona shirka looga hadlayay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka. Shirka ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynayaasha Puntland, Galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, halka dhanka beesha caalamkana ay ka qayb galeen wakiilada qaramada midoobay Soomaaliya, wakiilka Midowga Afrika, wakiilada Midowga Yurub, safiirada Mareykanka iyo Ingiriiska. Shirka ayaa diiradda lagu saariyay doorashada waqtigeedu dhaafay iyo ajendayaasha shirka la filayo inay isugu yimaadaan madaxda dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo maamulkaasi gobolka Banaadir. Wakiilada beesha caalamka ayaa madaxda dowlad goboleedyada ku booriyay inay si wadaan kulamada xalka looga raadinayo arrimaha doorashooyinka ee dalka marka uu soo gabagaboobo ayna ka wada qayb galaan shirka wada tashiga qaran si dalku uu doorashooyin u aado. afhayeenka madaxtooyada maamulkaasi Puntland Jamac Yuusuf Jamac Dabarani oo goor dambe warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa yiri shirka waxaa looga hadlayaa xaaladda guud ee dalka uu marayo gaar ahaan arrimaha doorashooyinka sidii xal looga heli lahaa caqabadaha hortaagan inay doorashadu qabsanto iyo in shir guud ahaan oo loo dhameystiran yahay la isugu yimaado. afhayeenka ayaa tilmaamay in madaxda dowlad goboleedyada ay sii wadi doonaan kulamada ilaa laga gaaro natiijo wanaagsan. waxaana kamid ah hadaladii uu afhayeenku yiri kulamada madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya way sii socon doonaan ilaa laga gaaro natiijo wanaagsan iyadoo marka ay shirkaasi soo dhamaadana la filayo in warbixin buuxda laga soo saari doono ayuu yiri afhayeenku. sidoo kale madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo shir gudoominayay kulanka madaxda dowlad goboleedyada ayaa xal looga raadinaya doodaha ka dhashay heshiiskii 17 September oo qeexayay qaabka doorasho ee dalka. madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Dani waxa uu maanta ka qayb galay shirka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo wakiilada beesha caalamka. shirka oo ay sidoo kale ka qayb galeen madaxweynayaasha Galmudug, Jubbaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. waxaa looga hadlay xaaladda guud ee dalku marayo gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo sidii xal looga heli lahaa caqabadaha hortaagan inuu qabsoonto doorashadu iyo in maartay shir guud oo loo dhameystiran yahay la isugu yimaado. madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa uu shirka u ahaa maanta maalintii saddexaad. waxay hore u arkeen musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya, waxay sidoo kale arkeen golaha siyaasiyiinta ee Somaliland oo hogaaminayo gudoomiyihii aqalka sare Mudane Cabdi Xaashi oo sidoo kale ah gudoomiyaha madasha badbaado qaran. shirarka iyo kulamadu ay sii socon doonaan waana la rajeynayaa in ay natiijooyin wanaagsan ay ka soo baxaan. madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Dani maalmahan oo safar shaqo ku joogay Muqdisho waxa intuu halkan joogay uu dadaal badan geliyay sidii Soomaaliya ay marxaladda kala guurka uga gudbi lahayd, sidii Soomaaliya ay uga dhici lahayd doorasho sharciyad leh, doorasho dhameystiran oo loo dhameystiran yahay, doorasho wanaagsan oo ku qabsanta si xor ah oo xalaal ah, doorasho aan cidna boobin oo aad looga taxadaro. taasi dadaaladaas ay qayb ka ahayd dadaalada uu halka u joogo madaxweynuhu magaalada Muqdisho. Puntland waxay mar walba ay dadaal gelisaa dhismaha dowladnimada Soomaaliya. haatanna waxaan halkaan u joognaa in aan doorkayga muhiimka ka qaadano si dalku uga gudbi lahaa xaaladda uu haatan ku jiro, sidii loo xalin lahaa arrimaha taagan. kulamada madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliyana waa kuwa sii soconaya ilaa laga gaaro natiijo wanaagsan iyadoo markay shirarku soo dhamaadaan la filayo inay warbixin buuxda ay ka soo saaraan. محمد عبد العزيز سعيد، Somali TV، magaalada Boosaaso.